maanta oo kale 1974 bishii November 22 ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka Soomaaliyeed waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda militariga ahayd ee xilligaasi jirtay ay si wada jir ah u maamuusi jireen muhiimadda uu macalinku leeyahay. Macalinka ama baraha Soomaaliyeed waxa uu kaalin weyn ka qaataa bedelidda aragtida bulshada uu waxbarayo, ilaalinta hidaha iyo dhaqanka bulsho, ka badbaadinta bulshada mugdiga iyo jahliga, gaarsiinta bulshada baraha cilmiga iyo aqoonta. Waxaana maanta oo kale sanad kasta la fasaxaa dhammaan iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee dalka si loo muujiyo muhiimadda iyo kaalinta macalinka uu leeyahay. degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaana markii ugu horeysay 48 sano kadib laga xusay maalinta macallimiinta Soomaaliyeed. Munaasabadda xuska maalinta macallimiinta Soomaaliyeed ayaana lagu qabtay iskuulka hoose dhexe ee degmada Ceelwaaq. Munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen ardayda wax ka barta iskuulka ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka sare ee iskuulka, macallimiin, arday iyo sidoo kale marti sharaf kale. معلم انتي مدنيد هذا مريه هذا أفلحو أقول ديغايو انتي مدنيد هذا مريه. dadkii ka hadlay munaasabadda ayaana hambalyo u diray dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed waxa ayna ka sheekeeyeen taariikhda fog ee uu leeyahay macalinka Soomaaliyeed. waxay mahadu sugnaateen Allah subhanahu wa ta'ala mahada asaga iskale waxa kale oo aan halkan mahad ugu celinayaa ardaydayda sida mahadsan isa saartay wal xiraado isxilqaan. waxa kale oo aan halkan mahad ugu celinayaa macallimiintayda sharafta leh iyo macallimiinta Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay dunida ka joogaan. maanta waa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed loo asteeyay 22 November 1974 oo ay noqotay maalinta xusuusta gaarka u leh macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan. macallinku waa furaha maskaxda, macallinku waa abaabulaha bulshada, xukuumadda kacaanka iyo shacabka waxa ay u muujiyeen maalinta soo dhaweyn iyo xusuus weyn u leh xiisana u leh macallimiinta Soomaaliyeed. waxa kale halkan ugu darayaa sida ula socotaan aqoontu waa iftiin, aqoon la'aanina waa iftiin la'aan. waxa halkan ka jirta in guriga mugdiga ah iyo guriga iftiinka ah ay sumid ayna hurdadu kugu qabanin, ay hurdadu kugu baxayso guriga leyrka ama iftiinka leh. guriga mugdiga lehna ay iftiin ama ay hurdada ku qabanin. marka waxbarashadu halkaas ay maraysaa. waxaan ku soo gabagabeynayaa aqoon la'aan waa iftiin la'aan. waxaan kamid ahay macallimiinta primary Ceelwaaq dugsiga dhexe degmada Ceelwaaq. maanta waxay noo tahay maalin farxadeed, waa maalinka loo asteeyay maalinka macalinka Soomaaliyeed ay tahay taariikhday ku beegan tahay 22 November. maanta waxaan farxad la qaadanaynaa ardaydii iyo macallimiintayda. ma sha Allah waxaan ku faraxsanahay inaan maanta waqti wada qaadana oo ilaakum qaadatahay aan u dabaaldegno maalinka macalinka Soomaaliyeed oo asteey. waxaan halkan bogaadin iyo farxad iyo reereyn u marinayaa hawada dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida daafeeda ka joogaan. barnaamijka maanta meeshaan aan u fadhino waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan. bisha 12 November 22 1974 la soo asteeyay xilliga asaga ah ayaan muxuu ahaa insha Allah raxmaan yaan xafladan qiimaha badan uga soo qayb galnay ayadoo lagu muujinayo lagu weyneynayo xuska macallimiinta Soomaaliya. taasna Ilaahay baa ku maasan subhanahu wa ta'ala. Respected teachers and my dear friends, today I am standing in front of you to express my view about the importance of reading. Reading is a habit that can make us all a better person. Reading gives us knowledge and inspiration. It makes us smart. There are numerous examples of great people who emphasize on reading for good and successful life. Reading develops our mind to a great people of ideas and thoughts. People share their experience in life and work through books. Reading books can be great help. Reading novels, biographies, poems, etc. entertain us. It helps to relax our mind. We try to keep whatever we read
Reading definitely is a health exercise for our mind. Reading improves our personal power. I am very happy to be with you here. Thanks to everybody. waxaan halkan ka salaamayaa macallimiinteeda sharafta leh iyo ardaydeeda. waxaan maanta halkan hambalyo ugu direynaa macallimiinta Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. maanta waxay ku beegan tahay taariikhda 21 November 1974 waa maalinta loo asteeyay macallimiinta Soomaaliyeed. waxaan hambalyo ugu dirayaa halkan. waxaan ka mid ahay ardayda dhigato Ceelwaq Primary School meel walba ay joogaan hambalyo. Bismillah. First of all, I am greeting with the best greeting of the world that comes from the most important of my body. It is peace and blessing of God be upon you. Finally, I am greeting my teachers and honorable students who taught me these difficult languages. Hardship, may Allah bless them you with this mercy. marka ugu horeysa waxaa idinku salaamayaa salaanta ugu qalsan dunida taasoo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib anagoo ku bilaabay magacayga saddexan waa Ikraan Guuleed Daahir. waxaan ka mid ah ardayda baratay iskuulka weyn ee degmada Ceelwaq ee loo yaqaano Primary School in Ceelwaq District. maanta waxay inoo tahay maalin farxad weyn inoo leh. waxaan maanta halkan ugu hambalyeynaya macallimiinteena oo ah maalintii loo aqoonsaday maalintii loo asteeyay macallimiinta 1974. marka hore waa idin salaamay. waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan hambalyo u dirayaa macallimiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, khaasatan macallimiinta iskuulkayga iyo macallinkii ugu horeeyay ee bilaabay xarfaha afka Soomaaliga heerka aan joogano maanta ii gaarsiiyay. haddii waqti sharaf lahaa aniga macallin baa wadaagnay. haddii ehelnimadu wax goyso waayo ayaan kula joogay macallin. wanaagu hadduu abuurmo agtaada wax baan ku beertay. haddii naftu waano yeesho waxaad baad i bartay ay ku toosto adaa ammaan iyo ixtiraam iga mudan. macallinow qofkii jahliga iyo mugdiga iga saaray soo adigu ma tihid.